markiisul caafiya haddii cudur maare iyo caynkiisa la saari laa dad yow ceelkaa ku dhigay misana kharashkuu cuntamin intaa dhakhtarkaa calfaday haddeer waxa ceelka yimi markiisul caafiya markiisul caafiya waa xarunta ugu weyn geeska Afrika ee isku daweynta dhirta iyo daawooyinka dabiiciga ah waxaana ku jooga Dr. Mustafa oo muddo dheer ku soo jiray culumta daaweynta xanuunada halkan lagaaga daweyn doona waxa kamida babaasiirta gaasteriga xiiqda samboorka tayfoorka infectionka kaadi mareenka iyo dhiigga raaca fiixaha dumarka makaanka ka soo baxa cambaarta haaraha wajiga roomatiisanka hagaajinta xaydka ama caadada awoodda raganimada ka hortagga bidaarta kaliyaha dhagxantu ku jiraan hurdo la'aanta neerfa xanuunka toobinka duugista ciyaalka iyo dadka waaweyn ee habeenkii aan kaadida xejisan gooryaanka caloosha xoqadaha finaanka wajiga qanjirka ragga kaadida ku celiya sixirka isha iyo cudurro kaleba halka waxaan ka salaamayaa dhammaan macaamiisha ku xidhan xarunta weyn ee markiisul caafiya iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliga ku hadla meel kasta ay joogaanba waan salaamayaa xaruntan oo hore looga bartay in lagu daaweeyo dawooyinka dabiiciga ah herbalka ah ayaa maanta waxaanu dadweynaha aan u soo kordhinay qayb quraan saar ah qaybtaas oo quraanka dadka loogu saari doono si free ah oo lacag laga qaadahayn sidoo kale waxaanu u soo kordhinay qayb online ah oo ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan dhammaan bulshada ka fog xarunta markiisul caafiya sida gobolada iyo dalka dibadiisaba xarunta markiisul caafiya waxa xilli kasta kuugu diyaara Dr. Mustafa oo ku xeel dheer daaweynta cudurradan dhammaan waxaan ogeysiinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay kala joogaan ee xanuunsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafiye inuu markiisul caafiya inay ka heli doonaan dawooyin dabiici ah oo saddex arrimood ku suntan waxtar dhib la'aan iyo jabnaan waxaan qolan talin lahaa inay dadka xanuunsanaya inay ka faa'iideystaan xarunta markiisul caafiya waxay ku taallaa bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan masjid jaamaca weyn qabladiisa ama ka soo horjeedka dhakhtarka Cagaweyne ama Boobaal wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xidhiidhi kartaa telefoonada shaashada idinka muuqda balanteen waa markiisul caafiya